Ciidamada Booliska ee Gobolka Togdheer ayaa gudaha maxkamadda Gobolka Togdheer ku burburiyay maandooriyihii ugu badnaa ee khamriga oo ay hore soo qabqabteen ciidamada Booliska ee Gobolka Togdheer gaar ahaan ciidanka saldhigga dhexe ee magaalada Burco waxaana maandooriyaha khamrigani oo tiradiisu dhamayd 355 dhalo oo nooca dredging ah ay ciidamadu ku hor burburiyeen gudaha maxkamadda Gobolka Togdheer xeer ilaaliyaha maxkamadda racfaanka ee Gobolka Togdheer oo la hadlay telefishinka Ayaa ayaa sheegay inay maxkamadda racfaanku ay xukun ku riday eedeysanayaashii lagu soo qabtay maandooriyaha khamrigani eedeysanayaal iyo khamri ay siteen la xukumay waxaana maanta taariikhdu inta tahay aanu ku xukunay eedeysanayaasha saddex eedeysane waxaana halkan lagu burburinayaa khamri dhan 355 quraaradood oo litir khamrigaas loo yaqaano dredging saadarteed waxay ku guuleysteen bileysku iyo ciidamadu inay soo qabtaan oo ay arintaas aad ay u mahadsanyiin maxkamadduna saasay ku xukuntay waxaa had iyo habeen buu soo jeeday ciidanka booliska ee gobolka Togdheer kuwaasi oo ku hawlan had iyo jeer sidii ay u qaban lahaayeen aafadaasi wadanka soo galaysa muxuu ahaa dhalinyaradii dhibaatada faraha badan la ku haysa kana soo galaysa xuduudaha aynu la leenahay dalka Itoobiya had iyo habeen ma seexdaan ciidanka booliska ee gobolka Togdheer wax kastana way kala kulmaan khasaare iyo dhibaato iyo rasaas mid walba way kala kulmaan aad iyo aad ayay ugu amaanan yihiin qarankooda ay had iyo habeen buu soo jeedaan taliye ku-xigeenka qaybta asluubta ee gobolka Togdheer ayaa dhankiisa ka hadlay halkaasi waxaana uu ku ammaanay ciidamada booliska sida hagar la'aanta ah ee u gudanayaan waajibaadkooda shaqo saldhigyada gobolka booliska oo dhan ku ammaanan aafeynta dhalinyarada da'yarta ah ee 18 ilaa 25 ee moobilada ka qaadanaya dumarkii iyo hablihii u istaagay waa khamrigan waxana aafeeyay ee dibu dhac ku riday dhalinyaradii mustaqbalka waa khamrigan waynu ku maasiin ilaahayna ajir iyo xasanaad ha ka siiyo taliye ku-xigeenka ciidamada booliska ee gobolka Togdheer gaashaana dhexe Yuusuf Shire ayaa sheegay inay ciidamada booliska ee gobolka Togdheer ay had iyo jeer heegan buuxa ugu jiraan sidii ay gobolka uga ciribtiri lahaayeen maandooriyaha khamriga waxaana waa maan ballaaran u soo jeediyay ciidamada booliska ee gobolka Togdheer gaar ahaan ciidamadii gacanta ku soo dhigay maandooriyaha khamrigaasi oo ahaa ciidamada saldhigga dhexe magaalada Burco runtii waxaan maaragtay dagaalka la sheegay inuu kula jiraa dhamaanteenba inta badan ilaahay way inagu guuleeyaa yaro inaga baxsataa waa jirtaa intaana insha Allah ilaahay ba gacanta soo gelin doona taasi waa taa waxaan u mahadnaqayaa garsoorka heer gobol Togdheer oo isla markiiba garsoor ahaan iyo xeer ahaanba dedejiya isla markaasna asluubta oo iyaduna markiiba dabeetana maaragtay xabsiga cagaha loo dhigo iyadana gacanta ku dhigta oo kuldhawgii ama weelkii lagu ridayay markaa eedeysanayaashii ah oo iyaguna diyaar u ah ama heegan ah iyo dhammaan bulshada iyo ciidanka booliska ee gobolka ilaa taliye qaybeed ilaa shacabka soo sheegay gacanta inaga siiya ilaa iyo taliska guud oo maaragtay isaguna heegan u amal walba nagu dhiiri geliya in aan maaragtay hawshaas aanu gudanno waajibaadka aanu ku leenahay dhammaantoodba waanu mahadnaqaynaa ugu dambeyntii ciidamada booliska ee gobolka Togdheer ayaa si rasmi ah gudaha maxkamadda ugu hor burburiyay 355 dhalo khamriya oo ay ciidanku gacanta ku soo dhigeen ugu dambeyntii ciidamada booliska ee gobolka Togdheer ayaa iyagu ah kuwa had iyo jeer heegan buuxa ugu jira sidii ay gobolka uga sifeen lahaayeen maandooriyaha khamriga Abdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi telefishinka caalamiga Ayaa Burco.